suurtagal tahay in la bartilmaameedsado kadib markii ay soo baxeen kooxo ka barakaysanaya isla markaasina aaminsan in ragga bidaarta leh madaxooda dahab uu ku aasan yahay isla markaasina ay doonayaan ragga madaxa inay ka goostaan sida ay sheegeen booliiska waddanka Mozambique. arrintaasina waxay uga digeen in dadka noocaas laga hortago isla markaasina ay doonayaan in arrimahaasi ay hirgeliyaan. ciidamada bilayska ayaa arrintaasi si weyn uga digay. ciidamada bilayska waddanka Mozambique ayaa waxay ka digeen khatar cusub oo soo korodhay oo lagu bartilmaameedsanayo ragga bidaarta leh, waxaana ciidamadu ay sheegeen inay jiraan dad dhalinyaro oo yaryar oo 20 jir ah oo aaminsan aragti khaldan oo sheegaysa in ragga bidaarta leh madaxooda laga yaabo inuu dahab ku jiro isla markaasina qaarkood ay geysteen falal noocaas oo kale oo dhibaato loogu geystay dad astaamaha bidaarta leh oo da'yartaasi ay weerareen. waxaana la sheegay dadkaas inay rumaysan yihiin aragti sheegaysa inay ka barakaystaan, waxaana taasi ay horseedaysaa in dad badan dhibaato loo geysto. waxaana ciidamadu ay sheegeen arrintaas inay horseedi karto in ragga madaxooda bidaarta uu leeyahay ay la kulmi karaan dhibaato la xiriidha arrintaasi. taliyaha ciidamada bilayska ee gobolka bartamaha waddanka Mozambique oo lagu magacaabo Afonso Dias ayaa arrintani warbaahinta u sheegay, waxaana uu sheegay khatartan soo kordhay inay la mid tahay tii hore loola tacaaliyay ee ku saabsanayd in dadka diirkoodu cad yahay loo yaqaan albinoska dad badan ay rumaysnaayeen hilibkooda in laga barakaysto isla markaasina ay sababtay in dad badan oo qowmiyadaasi la laayo. waxaana uu sheegay taliyahani in hadda ay si weyn uga walaacsan yihiin in khuraafaadka hadda ku soo kordhay bulshada ay horseedi karto in la dilo rag badan oo astaamaha bidaartu ay ka muuqdaan. sidoo kale sarkaal dhinaca ammaanka waddanka Mozambique ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka AFP in mid ka mid ah dhibanayaasha arrintan ay la kulantay madaxa laga jaray isla markaasina ay dadka soo weeraray ay la baxeen qaybo ka mid ah unugyada madaxiisa. waxaana la sheegay dadkaasi inay rumaysan yihiin in unugyada madaxa ay kala baxaan loo isticmaali karo hab daawo ah, waana mid ka mid ah arrimaha ugu